ciwaanka sidaad ku aragteen doqonay dabkaabe doqon hal ilbeelada heshan isku ay ku aragtaa inaag jir baan gelayaa maanta inaag jir baan gelayaa waxaa jira gabadh waxaa jirta wasiirada oo filsan la yidhaahdo filsan waa dowladda federaalka wasiirka haweenka Ethiopia weeye waa gabadh ogaadeena waa gabadh Soomaaliya waa gabadh ogaadeena gabadhaas waa naag wax baratay waa PhD Mustafa cagshar waxaa la yidhi shaqasi Abi Ahmed baa la soo hadlay wuu meermeeriyey Abi Ahmed intuu xanaaqay wasiirka haweenka u magacaabay Mustafa markuu arrintaa maqlay madaxa qarxay Mustafa meesha xaal marahayo iyo meesha wax la iska leynhayo iyo rag meesha uu iska diray lama socdaba si waxay kaga dhigan tahay xaafadda hoosteeda iyo kaga dhigan tahay shalay baan dabay xabadda inaan kor uga rido doqontu waxaa la yidhi xalgi lagu dilay iyada xusullada ku watay isagii baa wata nin isagu saabeynaya maanan ugu difaaci karaa ma difaaci karo ya ma difaaci karo nin isagu saabeynaya anu miyaan difaaci miyaan ilaalin karaa maya gabadhaasu TV bay samaysay TV-ga ay samaysay waxay u samaysay dadka Soomaaliyeed dowladda federaalka ayaa dhisabiya inuu ka shaqeeyo oo loo gudbiyo dadka Soomaalida baahidooda bay u samaysay Soomaaliya oo dhan TV-gaas u dhaxeeya Mustafa in badan buu isku dayay gabadha inuu faragelin ku sameeyo hawsheeda waana arrin federaal iyada way ka kulleetay weyntahay iyadaaba isagana wax mayna weydiisanin Mustafa wixii xumaa ee xaafadaha uu la joogay ee wadan jiray qashinka ahaa sheekadii buu bilaabay saaka waxaan arkaya wiil la yiraahdo Saddam Abdi Hussein oo media ka hadlaya wiilka shaqada waxaa laga eriyay February 22keedii February baa laga eriyay 22keedii ma aha 2 bilood iyo 22 habeen buu shaqada ka maqan yahay shaqadan waxaa looga eriyay in uu isagu shaqadiisa gudan waayo nin balwad leh buu ahaa sida la ii sheegay aniga shaqada waa laga eriyay wiilka Mustafa hada hawlgeliyay Mustafa baa hawlgeliyay Saddam waxaa la yidhi guri baa lagu dhisi waxaa la yidhi waxaa laga dhigayaa agaasimaha guud ee warbaahinta deegaanka gabadhaasu in TV-geeda uu yacnaha Ethiopian u shaqeeyo oo una danta Soomaalida ka shaqeyneen arrintaas soo bandhig baa lagu yiri wiilkii oo hadlaya saaka fiidiyowyada inaad ka daawateen baan u malaynayaa TV-ga oo sidana qofka bini'aadamka marka uu hadlayo garasho haddaad saaxiib u tahay bari language ku isticmaalayo qofku marka uu hadlayo hadalkiisa dareemaysaa hadalku inuu been yahay kale wiil aad garanayso qorqabad inuu yahay qorqabad ma taqaanaa qorqabad gurina meesha ka galay oo la yiri gurina waa lagu dhisay jigsiga laga dhisay oo qasri ah la yiri shilmana waa lagu siinayaa agaasimana waa laga dhigayaa oo shaqadii horena ka tagay waa dareemaysaa laakiin hadda wixii beenta marka la isku hagaajinayo ninka aqliga oo saaxiibka uu dareemaya Mustafa hawlgeliyay wiilku waa wiil xaafadda ka soo jeeda Mustafa yay maadar yihiin wiilkaasu gabadhiiba ku tufay iyo TV-geedii waqtiga shaqada laga eriyay waqtigaas ay ahayd gabadhan tada hadda lagu tufaayo ee uu leeyahay wiilku isma balhaba wiilku wuxuu leeyahay filsan baa shaqada naga eriday waqtiga wasiiradba ma ahayn TV-guna ma jirin isqabatiye u fiirsada Soomaaliya qofku hadduu been sheego iyadoo cad buu banaanka imanaysaa filsan waqtiga wasiirad ma ayna ahayn wiilka shaqada laga caydiyay February 22keedii wasiirad ma ayna ahayn federaalka waqtiyada laga dhigayo way ka dambeysay ya siga meel bay kaga dhigan tahay xaafadda hoosteeda kaga dhigan tahay dadka Soomaalida waxaan u sheegayaa wiilka in lacag lagu siiyay Mustafa uu ku siiyay gurina waa lagu dhisi la yiri wayna soo bixi doontaa ila fiiriya anu waxaan sheegay waxaan ogeyn media ma keeno isagoo oo wiilkana guri looga dhisay jigjiga lacagna la siiyay media warbaahinta lagu daray baan intuu si doona anu wax walba waa sii hordagaa haddii una hadda cararna waa lagu ogaaday una dhihin kuwa Mustafada hayo anagu anagu Mustafa waa wiilkanagi laakiin siyaasadiisa waan dhaliilaynaa waan ka horjeednaa 100% anigu
haddii hadda la yidhahdo hala tuuro waa u codaynaya ninka waxaa hayaa okaadi